magacaygu waa Ugaas Mare Qiso maanta aan soo imaanay meeshan waxaan ka hadlaynay diinteen iyo ku dhaqankeena hore oo Kenyaji oo Soomaalida xeer u yaqaan ayaan maanta ka hadlaynay culimada waxaan loo soo jeesay in maartay oo diinta Islaamka aan wada qaadano maadaama ay diinteen iyo dastuurkeena hadda jiro aan isqalaabsaneen waxaa la yiri waxyaalaha maartay oo diinta ogoshahay dastuurkeena ogolyahay oo diinteena ogoshahay inaan qaadano ayaan ku heshiinay haddana arrinta waa noo socotaa waxaan rabnaa insha Allah subcounties kulli inaan gaarsiinaan rabnaa insha Allah waxaan rabnaa inaan arrintan aan qaadano fariin waxaan u faraynaa muslimiinta dhageysanaysa kulli inay maartay arrintan ay qaataan waayo diinteeni kitaabkeena jeebkan ku wadanaa ama garabkan ku wadanaa kitaabkan wadan hadaan garanaynin ama ku dhaqmaynin islaamnimadayna qatar ku jirtaa waxaan rabnaa qof muslim oo dhageysanaya kulli waxyaalihii hore oo maartay soo qabanay hadii oo jaahilnimo loo geysiyo hadii maartay oo anaga jacayl u yeelnaba horta afyaan ka dalbayna taas waxyaalaha wanaag u sameeynin ajar xasanaad ilaah naga siiyo waxyaalaha qalad naga dhacin waxaan ka codsanaynaa ilaah ilaa caafiyo mudana caafisaan ayaan codsanaynaa tan u gudbi mid kale waxa fariin farayaa dadkan kufsiga badan oo gabdhaha leeyna iyo kuwii oo macasi oo heshiis ku leeyna annaga rantaas ka soo jeednaa waan u soo jeesanay waxaan rabnaa inaan maartay hadda wax ku jirta ka baxdid adigoo gabadha islaamka dulminaysid oo gabdhaha islaamka u reynaysid waxaan rabnaa rantaas inaad ka fogaatiin ka rabnaa hadda ka fogaan waysid annaga oo soo jeesanay dawladda oo kaashanayno umr xirg aloo xiri hadii mar lagu qabto oo gabar xumaysid annaga soo dejisanay annaga culimo iyo odayaal kulli waa soo jeesanay waxaan rabnaa in arrintaas maartay oo degtiin aan ka direynaa dadkeeni shacabka in arrintaas u diyaar garoobdaan magaalada fuxsha ku batay bilaa daroogi bilaa la gadi bilaa la cabbi ilmaha kulli waa halaabeen waxaan rabnaa in arrintaas maartay aan ka hortagno ayaan rabnaa anigu waxay la tahay horta wax saameyn ugu yeelan malaha waayo arrimahan qabanaynin horta waa sulxi dadkan kala bixinaynin dad is haysto qof dilay qof gabar xoogay wixii aan kala bixinaynin hadii wixii sharciga islaamka lagu salaadin lahaa waxayna wanaag iyo ajar xasanaad aan ka helayna moogi wax maartay dib noo geysan malaha umalayna sababta haddaan meeshan iskugu imaadnay maxaa waaye waa arrin dhiig ah iyo xeerka dadka u sii yeelay xeerka dadka awal sii yeelay qofku dilay muxuu ahaay neefki geela 10 lagu qiimeeyay laakiin hadda neefki geela 10 kaas ma joogo neefki area 10 ka sii sarreey qaalin oo hadda daatir aha waqladan subinaya neefki ariga 12000 13000 meelahaas u gaarahaya soo maxaa la arkay suuqii dadka awal lagu qiimeeyay intaas qiimaha kor u kacay geela qiimihiis kor u kacay oo qiimihii shil lagu qiimeeyay oo dagi kolkan culimada maxay xeerkii maxay ku bedelaysaa qiimaha geela qofka kas u dilo for example qofki kas u dilo boqolki geel maxaa loo qaybiyay categories ilaaha qaybi muxuu u qaybi 30 neef oo 5 jir 30 neef oo 4 jir 40 neef oo dhali qiimaha intaas oo lama dhahay suuqa la tagaa ku kas haday mid rimin qiimaha suuqa laga ogaanaya mid 4 jirka suuqa laga ogaanaya mid 5 jirka suuqa laga omaanaya arrintaasay si loogu billaha oo tii hore looga kicilatan loogu soo golaha fadhigan saasa la iskugu imaado insha Allah maxaa iskugu imaaday culimada Madera iyo maxaa iskugu imaaday ugaasiyaha countiga idil dadka ugaasiyaha oo arrintan dhiiga qaadi lahaa oo uqaalkaha ayaa kulligood iskugu imaaday countigana waa joogtaa kulli maartay dawladana way wala joogan marka saas way sababta la iskugu imaaday diya kasto nooc kastaba nooc u dhacda faraha u dhacda jirka qofka jirkiisa kulli khusaynaysi waa la qiimay mid gabadha la kufsaday waxan kulli waa la qiimay gabdhaha handaaba xoog lagu kufsado maartay xoog lagu kufsado oo la xoogo haday wixii ay isku goranaan diida laga qaadaa wixii kalena wixii culimada iyo maartay wixii dadweynaha gooyaan laakiin haday gabadha isku furan noqoto oo maartay dabadeedii kaadida cishin weeye diida laga qaadaa hadda naaskan laga gooyo intaas 25 kan kale hadda laga gooyo 25 ninkan naas laga gooyo qiimo weyn naaskan awalba ninka kuma fadhinin odayaalka qiyaasa laakiin gabadha naaska meeshan kor laga nuugayo labada meelood la gooyo diidada la bixin ma waxaasay kulli ku xisaabsan ya la isku imaaday arrin haddaan dhaxgal fafaahin kar ma in
gaarigii accidentkiisa hadduu imaado ama qofka darawal wax kastaba waa la iskaga imaaday oo la iskaga maaragtay waa laga naqaashay hadda wili hadalka waa socdaa maya dawladda waxna way noo ogashay wixii dawladda xuduudkeeda wax ma dili karna anaka qiyaasta saddex shay ay diinta ogashay dil iyo diyo iyo iscafin intaan diinta aan ku dhamaysano dhaxdayna constitutionka waa noo ogolyahay dil laakiin dawladda iska leh ama xirata ama ha togoto annaka ma qaadanayno laakiin dhiigii iyo maaragtay cafiskii annaka iska leh kama hormaasna dawladda maxaan isku waafajinaa dawladda aan noo ogolno kasr maaragtay maxaa lahaa xarbeegeedka intaan ku dhamaysto constitutionka ay kamid tahay maxkamadaha arrimahan oon dhammaysanhayno waa loo geynahayaa iyadoo lasoo tafaantiray oo la dhameey yaa dawladda loo geynahaya maxaa jira weli fadhi weyn oo laisku soo laabanayo oo county commissioner imaadaya governor imaadaya xuquuqda kulli imaadaya oo la baasmaraynayo maxkamadaha habta loo yeerayo processka waa bilowday ma dhamaanin